tartan ciyaareed ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal iyadoo kaashanaysa hay'adda wadaniga ee Ayoodha ayaa lagu qabtay magaalada Boorama. Tartan ciyaareedkaasi ayaa waxa loo qabtay ardayda dugsiyada hoose dhexe ee ay dawladdu maamusho kuna yaala magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Tartan ciyaareedkani ayaa waxa uu magaalada Boorama ka socday muddo 2 bilood ku dhow iyadoo tartan ciyaareedkaasi lagu qabtay garoonka casriga ah ee Sports Village. haddaba xafladii soo xidhitaanka ciyaarahaasi ayaa waxay ka dhacday isla garoonka Sports Village waxaana halkaasi ciyaartooydii ka socotay dugsiyada kala duwan ee magaalada Boorama lagu guddoonsiiyay koobab iyo bilado kala duwan. ayaa wax xafladaasi ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka, iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday hay'adda wadaniga ee Ayoodha oo iyadu kaalin lixaad leh kaga qayb qaadatay tartankan ciyaaraha ee loo qabtay dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Boorama iyagoona halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha ugu horeeyay gudoomiyaha waxbarashada jeeke suuduwaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Awdal Samaroon iyo dhammaan maamulayaashii 8 dugsi ee tartankan ka qayb galay. mar labaadka waxaan maslaxaadka u mahadnaqayaa hay'adda Save the Children ama hay'adda badbaadada carruurta oo naga taageerta mashruucan sidii loo xaqiijin lahaa xuquuqaha carruurta. Ayoodha waxay ka shaqaynaysaa 4 sano ugu dambeeyay sidii ay kor ugu qaadi lahayd xuquuqaha carruurta. xuquuqahaasna waxa ka ahaa sidii loo kor loogu qaadi lahaa ilmaha yar inuu ciyaaro oo mid ka mid ah xuquuqaha asaasiga ah ee ilmaha yar inuu xaq u leeyahay inuu ciyaaro. sidaa darteed aniga ku hadlay magaca Ayoodha waxaan u hambalyeeynaa kooxda guuleysatay ee galbeed. da'dan waa da'dii ugu baahnayd runtii in wax loo qabto meeshii laga soo bilaabay way asaaska hoose. insha Allah wasaaradda labada wasaaradoodba dhalinyarada iyaga ayaa shaqada hawshooda hay iyaguna subaxdii bay hayaan anagu gelinka dambe la wareegnay kasta anaga noo dheertay dadkan waxba baran ayaguna siyaada nagu yihiin. insha Allah inaan iska kaalmaysano iyo noqonaysaa qorshe sanad walba la nimaadno ka milkiilaha garoonkana aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo dhammaan kooxii ka soo qayb galay. waan hambalyeynaa sababtoo ah maxay waxaynu ugu talagalnay inagu waxbarashada waxa ku jirta waa aqoonta iyo jirka weynaynu dhisno. marka waa qayb ka mid ah waxbarashada ay noo tahay isku duwe oo annaga sports group noogu jira xiisad ka mid ah xiisadaha la qaato tii umaan markaa ugu talagalnay inay dhammaan dugsiyadu isdhex galaan la isku barto. dhammaan cid kastoo ka qayb qaato maamulayaasha ay ka mid yihiin sida wanaagsan akhlaaqda leh iyo nidaamka leh maanta inoogu soo gabagabaysmay ayaan ugu mahadnaqayaa. oo ama maanta waxaan biladaha la guddoonsiinayo direesyada waa Ayoodha iyadoo ay leedahay fanka markaa Save the Children oo mashruuci ah markaa ilaalinta carruurta ay ka mid tahay oo iska kaashanay. waxaan markaa ujeedadu ay tahay inaynu ka wada shaqayno ardaydu ay isbarato akhlaaqda ka dhisno xagga inay akhlaaqda iyo isdhexgalka iyo walaaltinimaduba ay xoogaysato dugsiyadu ayna iska warhayaan. insha Allah mid halkan ku istaagay ma wuxuu noqon doonaa mid inoo sii socon doona iyadoo talada iyo khibradana ka wadaagi doono wasaaradda ciyaaraha oo iyadu intii tala iyo hawl qaabkii loo qaban lahaa iyadu mas'uuliyadeedii ay tahay. hay'adda wadaniga ee Ayoodha ayaa waayadii ugu dambeysay waxay ka qayb qaadanaysay wacyigelinta kala duwan ee bulshada Boorama si looga hortago dhibaatooyinka loo geysanayo carruurta yaryar. waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Boorama.